asalaamu calaykum waa yuusuf shire isku soo noqod wanaagsan waa maalin kale iyo fursad kaloo cusub maantana waxaynu u kicitimaynaa dhankaas iyo UK wadankaas United Kingdom waxaan isla eegi doonaa jaamacad kamid ah jaamacadaha ugu magac dheer dunida jaamacadaas UK safka hore ama number koowaad ay ka gashaa dunidana jaamacadaha ugu tayada sareeya ama ugu horeeya ay kamid tahay waa jaamacadda University of Oxford dadku waxay ku yaqaaneen inay tahay jaamacad adag tacliintoodu tayadeedu ha sareysa laakiin ay adag tahay gelideedu qaalina ah laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay dad badan ogeyn in jaamacadaas ay bixiso sanadkaas scholarship iyo faraha ka badan kuwaas oo ay dad badan oo daafaha dunida ku kala nool ay ka faa'iideystaan haddaba maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa scholarship loo ogol yahay dadka Afrikaanta iyo sida meesha dabcamada Afrikaana ay Soomaalida ay ka faa'iideysan karayaan fadlan dee aad ka mid tahay asxaabta channelka ku cusub fadlan like share subscribe gambalaalkana furo si aysan ku dhaafin fursadaha isbuuclaha ah ee aan soo geliyo channelkan haddii aad ka mid tahay asxaabta hore ugu xirneedna isku soo noqdo wanaagsan waa tahay Oxford waxa weeye waxay leedahay barnaamijyo badan oo qofkii dabcan jaamacadaasi gala uu ka faa'iideysan karayo scholarshipyo badan ay siinayso sida xakan ka muuqata waxa jira scholarship loogu talagalay dadka Afrika ka soo jeeda iyo dadka dabcan dhaqaalahoodu hooseeyo hadaa website-kan weyn fiirisido Afacus la yiraahdo waxa ka helaysa scholarship dhowr xaba oo loogu talagalay dadkaas Afrikaanta ah oo ay Soomaalidu ku jirto scholarship-yadan waa eegi kartaa dhowr xaba weeye ma wada eegin qayb baan eegay sidoo kale jaamacadda website-ka rasmiga goorta timaadid A to Z of scholarships halkaan waxa ku qoran scholarship iyaguna aad u fara badan oo dabcan dadka dunida wadamada kala duwan oo dhan ay soo xareyn karayaan dhamaantood ma wada xareyn karna laakiin qayb badan oo kamid ah eligible baa u nahay oo waanu xareyn karaynaa marka ma doonayo inaan waqti ku wada dhumiyo inaan waxaasoo dhan sii wada eego waxaan idiin soo dooray 3 scholarship oo aan hubo inay dadka Afrikaanta iyo Soomaaliduba xareyn karayaan khaasatan qayb kamid ah aan ba ogahay dad Soomaali ku guuleystay waxaan ku bilaabi doonaa Weidenfeld Hoffman Scholarship and Leadership Program programkan waa program masters level ah oo waxa way loogu talagalay inay soo saaraan hogaamiyaashii biri iyagoo fursad la siinay inuu jaamacad qofku ka dhigto graduate program ama masters kadibna uu hadii ilaahay ku ogolyahay sidoo kale laga taageero barnaamijyo horumarinaya aqoontiisa iyo hogaamintiisa waa fully funded oo waxay ka dhigan tahay kharashka dhan waa laga kofar gareynayaa sidoo kale hadaa halkan ka sii akhrisid xogta waxa ka helaysa scholarshipka iyo hadii ilaahay ku ogol yahay trustiga organizationka oo isagu 60% bixinaya 40 jaamacada bixinaysa scholarshipku sida aan idin sheegay waa 100% qofka kharashkii kulliyadda kaga bixi lahaa iyo dhaqaalihii noloshiisa ku bixi lahaa waa la kofar gareynayaa sidoo kale scholarshipkan marka xogtaas adiguna waa sii akhrin kartaa next haddaan iraahna eligibility-ga yaa xareyn karaya marka qofku waxa weeye waa inuu xareynayo full time graduate course oo jaamacadda Oxford ka xareynaya sanad dugsiyeedka cusub ee bilaaban doona kaasoo ka dhigan September 2025 eligible courses koorsooyinkaas waa inaa mid xareynaysid maadooyinkan haddii ilaahay ku ogol yahay masters science business maadooyinkaas uun baa la ogol yahay ma garad marka maadooyin badan waxa way dabcan socialka la xiriira engineeringa iyo baa ku arkaysaa wadamada haddii aan nimaano eligible countries wadamada loo ogol yahay waa kuna wadamada dunida ugu dhaqaalaha hooseeya hadaa hoos u socotid oo xarafka S maadaama gadaal ku jirna ay egtidna waxaa ku soo arkaysaa Soomaaliya inay ku jirto scholarshipkan waxa ku guuleystay sanadkii tagay inaan isla ahayn reer Turkey isagana waxaan rajeynayaa insha Allah inaan soo qabto oo nooga sharaxaad fiican naga siiyo marka scholarshipku waa kana haddii aan usii gudubno qaabka u xareynaysidna waxa way scholarshipku waxa way marka hore waxaa khasaba inaad jaamacadda aad boos ka heshid University of Oxford baa xareynaysaa kulliyad baad dooranaysaa hadda course page-kan oo kala tagaysaa course page-ka kulliyadihii hadayta aan soo sheegnay loo ogol yahay scholarshipkan uu ka fargareeyba mid ka dooranaysaa waa xareynaysaa kadibna form ay leeyihiin qoladaana isagana buuxbuuxinaysaa waa ku daraysaa boos goorta jaamacadda ka heshid automatically jaamacadda ay qofka la soo xiriiraysa haddii uu adag yahay case-kiisu kadibna interview baa xigaya oo adigu April meelahaas la marayo haddii ilaahay ku ogol yahay qofkii ku guuleystana dee samarkaa loo soo dirayaa dokumentiyadii wixiisii saas wuxuu ku bilaabayaa haddii ilaahay idmo sanad dugsiyeedka cusub marka waa kuna koorsooyinkii jaamacadda African Studies oo kale hadda waxay ka mid ahayd dabcan koorsooyinkii Hoffman Trust ay kofar gareynaysa ama dadka ka bixinaysa 9 bil bay soconaysaa waa masters oo science oo ah
hadaad sii furtidna marka masterkan oo African Studieska waxaa arkaysaa inter requirementskii, waxaa arkaysaa funding iyo costigii, collegekii, sidii loo xareyn lahaa. marka xogtii oo dhan xaggaana ka helaysaa oo jaamacadda xarinteedii dabcan dee waanu isla wada ognahay oo waa jaamacad caalamiya, waa jaamacad tayo leh, ma sahlana xareyntoodu oo requirementskooda kale way adag yihiin, inkastoo hadda GMAT iyo GRE waxa ay isku jirin, laakiin dee imtixaamadii dadka Soomaalida dhibi jiray baa meeshan markasta yaallo, weliba grade sare la iska rabo IELTS-ko kale. laakiin waxaa hubaa dee dad badanna in la ka helayo Soomaalida oo runtii intaa keensan karayo oo shahaado gradekeedu uu 3.5 ka sareeyo iyo IELTS fiicanba keeni karayo. marka yaan laga cabsan, hala isku dayo, hala xareeyo. Soomaalidana waa dad maadaama ay dhibaatooyin dhaqaale iyo waxyaaba dowlad la'aan haystaan, waxaan rajaynayaa in loo nixi doono oo sidaas lagu dhageysan doono qofkii case adag soo bandhiga. scholarship wuu furan yahay, hadda application wuu furan yahay. badanaana waxay xirmaan December, koorsooyinka badi December bay xirmaan, qaybna January bay xirmaan. marka scholarshipkan Weidenfeld Hoffman waa scholarshipyada aan isha ku hayo. waxaan samayn doonaa insha Allah ninka dhalinyarada ee sanadkii tagay ku guuleystay in aan mar YouTube ka soo fariisiyo, uu ka sheekeeyo stepski uu qaaday oo dhan, kadibna aanu insha Allah dhalinyaro badan ku dhiirigelino inay iyaguna xareeyaan oo ay ka faa'iideystaan. runtii qofkii khibrad shaqo leh, academic ahaan dhisan, luqadiisu dhisan tahay, barnaamijkan aad uga warhayo, laana aad bay waxay u raadinayaan dad wadamadaas hoose kasoo jeeda oo dalkooda gadaal wax ugu celin karaya. waa tahay scholarship number 2 isaguna sidoo kale waa scholarship ay jaamacaddu bixinayso, waa mid loogu talagalay dadka refugeega ah. isagana waxa way sharaxaadiis meeshana ka helaysaa. waxaana dadka xareyn karaan waxa way dadka ku barakacay dagaal dartiis ama ka cararayo xuquuqda bini'aadantinimo oo dib loo geystay. scholarship academic yearka 25-26 waa furan yahay. isagana waxa weeye waa sidii scholarshipkii kan ka horreeyay ka hadlayo kale, waa ina xareysid boos ka dalbatid kulliyad ka mid ah kulliyada ay jaamacaddu bixiso. deadline-koodu November, December, January weeye dhammaantood. kadibna goorta dalbanaysid oo aad offerka dalbanaysid baa waxaad sidoo kale hoos ka xariiqaysaa ama sheegaysaa inaad tahay qof qaxooti ah ama ku barakacay dib iyo dagaal wadankiisa ka dhacay. labadaa haddaad sheegtid case aad gudbisid, hadhow interview in lagugu yeeraa laga yaabaa, hadhowna interviewyada iyo dadka saa loogu baalkeenaya, qofkii ku guulaystana saasuu scholarshipka ku helaya. scholarship number 3 waa scholarship magaciisu uusan ku cusbayn, waa Mastercard Foundation. Mastercard Foundation jaamacado badan bay waxay leedahay xiriir oo ay kaashataa. marka Mastercard Foundation iyada oo University of Oxford la xiriiraysa, khaasatan initiative-ka Africa Oxford oo AFOX loo yaqaano, bay waxay siinaysaa 400 oo daa'ir Afrikaana scholarship fully funded ah. marka xog dhammaystiran baa meesha ku qoran, waxaan dhan hadda ma wada akhrin karayo, laakiin waa Mastercard. laakiin wuxuu kaga duwan yahay Mastercard iyada kala form yaa la buuxbuuxinaya, laakiin kan waxa way waa inaad jaamacadda xareysid, jaamacadda goortaa boos ka keensatid baad ku xusaysaa marka application-ka samaynaysid in aad haddii Ilaahay ku ogol yahay Mastercard Foundation program-ka rabtid inay ka kufar gareeyaan. marka xogtii dhan xaggan ay ku qoran tahay. December iyo January bay xirmayaan. akhriya koorsooyinkii sida hadda ay soo aragnaa furaysaa, koorsada u baahan tahay baa saa ku dalbanaysaa. kadibna timeline-ku waa kana koorsooyinku markay xirmayaan, kuwa November xirmaya, kuwa December, kuwa January xirmaya. kadibna February ilaa April waxa way dadkii soo gudbay baa email loo soo diraya, waxa way initiative-ku interview ka qaadaya online ah. wixii July loo gaarana waxaa lala socodsiinaya natiijada. marka guntii iyo gabagabadii waxay isugu soo ururaysaa qof kasta oo xiiseynaya in uu haddii Ilaahay ku ogol yahay scholarship-yada faraha badan ee jaamacaddu bixiso inuu ka mid noqdo dad ku guuleysta, waa in uu jaamacadda Oxford koorsooyinkeeda galo, koorso uu xiiseynaya arko, requirementskeeda waxda arko, xareeyo. goortuu platformka ku dhex jiro, portalka jaamacaddu leedahay ku dhex jiro, uu xareynayana uu hoosta ka xariiqo in uu danaynayo scholarshipka gaarka ama kan refugeega ama Mastercard ama kan Hoffman oo kale. kadibna uu isku dayo intii awoodiisa inuu file adag gudbiyo, inuu gudbiyo application adagoo la qiimeyn karayo. qofkii jaamacaddaas boos ka hela
rajadiisu aad bay u sareysaa laana saddexda scholarship kaliya maaha saan idiin sheegay scholarshipyo kaloo badan baa jira oo aanan wada akhrin oo runtii badan uu qofka ka faa'iideysan karayo marka qaybtoodna waxa weeye haddii maca kuwan aan sheegay kale ku guuleysan weydid barnaamijyo badan oo waxaa jira qofka automatically scholarshipka loo siinayo haddii uu ku guuleysto offer uu jacaanta ka helo oo uuna dee soo gudbisto cabasho yiraahdo dhaqaale darteed iyo ama waxyaaba xaalada duruufaha oo waddankayga ka jira dartood ma iska bixin karayo jacaanta waxay markaa ku kabaysaa inay scholarshipyada ama fundska ay u diyaarisay inay ku kabto qofka waa tahay wixii aad su-aala qabtaan qaybta commentiska igu soo weydiiya facebook page baan sameeyey isagana hubiya inaad like tiraahdaan wixii kalena waxaan soo dhigi doonaa groupka telegramka insha allah waxaan isku dayayaa inaan soo badiyo fursadahan isbuuca soo socda netherlands baan ka hadlayaa scholarshipyo kaloo uk iyaguna ka furmay marka waxaasoo dhan siisa kuu dhaafin fadlan hubiya inaad share like tiraahdid gambaleelkana furatid lana sii wadaagtid muuqaalkan dadka walaalaha ah ee aad isleedahay way ka faa'iideysan karaan ilaa kulankan kan xiga waa yuusuf shiro idin la isma dhaafin asalaamu calaykum